Warsaxaafadeedkan ka soo baxay xafiiska xoghaynta warfaafinta xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa waxa uu xisbigu kaga hadlay dhacdadii dhawaan ka dhacday magaalada Gabiley ee ayga loogu xiray astaanta xisbigaasi mucaaradka ee Wadani iyo sidoo kale buugii qabyo qoraalka ee barnaamijka siyaasadeed xisbigaasi uu dhawaan ku soo bandhigay magaalada Hargeisa. Dhanka kale warsaxaafadeedkan ayaa waxa uu xisbigu xukuumadda Soomaaliland ee ugu soo jeediyay inay ka dambeeyeen dhacdadii dhawaan ka dhacday magaalada Gabiley ee astaanta xisbigaasi ayga loogu xiray magaaladaasi. Xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ee Wadani Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale Boobe oo warbaahinta u akhriyay nuqulka warsaxaafadeedka ka soo baxay xisbiga Wadani ayaa waxa uu yidhi hadalhaynta xisbiga Wadani ee maalmahani waxay u badnayd barnaamijkii qabyada ahaa sidii loo qabyo tiri lahaa annagoo gudaha iyo dibadba ku baahinay oo xataa xisbiyada mucaaradka gaarsiinay madaxtooyada iyo xarumaha xisbiga kulmiyana hadalhayntoodu maalmahani waxay ahayd in ay ku guuleysteen in ay u xidhaan calanka xisbiga Wadani. intaa waxa raacayay halkudhagyadii ay dadka lacagta ugu laabeen ee ahaa Wadani Gabiley ma iman karo iyo wax la mid ah. waxa hubantay inay hawsha galeen oo ay ka dambeeyeen saddexanka isku raranta ah ee aan la mahadin ee xukuumadda xisbiga kulmiye iyo dawladda hoose ee Gabiley. dhacaankii waratada laga soo nuugay ayaa qorshayaasha dhagareed lagu maalgelinayay. ceebtood maaha ee waa caadadood. daliilkeedu wuxuu yahay waxa bariye dhaweyd aynu marag iyo marxaatiba ka nahay xubno xukuumadda ka socday oo wajaale daahiriya shamis ka lahaa togo jaale waanu jecelnahay oo waa halkii ayga calanka udub loogu xidhay. daliil kalena wuxuu yahay ilaa maantada aynu joogno ma hayno dawlad dhexe mid hoose kulmiye boolis maxkamad iyo cid kale oo arinta ka falcelisa. saddexda xisbi meel walba dalka ahba waa ay tagi karaan, waa ay ka hadli karaan, waa ay iska sharaxi karaan. waa xeer iyo xaagaan dalka gobolada iyo degmooyinku uma xidhna xisbiga kulmiye. fariimaha caynkan ah madaxtooyada iyo xisbiga kulmiye waxay ku hurinayaan dagaalo sokeeye oo dalka ka bilaabma doorashadana dib loogu rido. fariimahan sareysan xajiimaysan ee xanafta leh ee doolarka lagu laabaya waxay horseed u yihiin in dalku kala go'o oo qolobo meel sheegato sidaasna xisbinimadu ku baabaado. xukuumadda iimaanka daran ee miyi magaalada murdisay waxa ku filaa in ay soo bandhigto waxqabadkeedii 7 sanadood ee ay xilka haysay oo ay ku ladho ballanqaad kale. waa fursad aanan helin annagu oo ayna dheer yihiin. dhaqan xumada iyo dhalan darrada reer Gabiley uma ay dhalan ee waxa baday xukuumaddan abaalka daran ee dhaqanka suuban iyo akhlaaqiyadka diineedba ka aradan ee kiishkii cawaale sheegayay ee aan buuxsamayn sidata kaas oo ilaa London ay dabadiis joogto. gaariye miyaanu oran durwaaga ciyaaya cabaadku nafweeye cadceed galabeedku godkay cirif joogto dambay ugu ciiri. gaariya sidaa yidhi annaguna waxaan leenahay cadceed galabeedku godkay cirif joogtay dambay ugu ciirtay. way ku ciirto maalintii uu yidhi isma soo sharaxayo maalintaas ugu dambeysay dalkan kulmiye iyo xukuumaddan. warsaxaafadeedkan ka soo baxay xafiiska xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa ka dambeeyay kadib markii dhawaan xarunta gobolka Gabiley ee gobolkaasi loogu xiray astaanta xisbiga iyadoo sidoo kale maalmihii ugu dambeeyay ay dadweynuhu hadal hayeen buugga qabyo qoraalka barnaamijka xisbigaasi oo dhawaan ku soo bandhigay magaalada Hargeisa. Cabdiraxmaan Carab Daawud, Somali Cable TV, Hargeisa.